waxa ugu weyn ee uu kulmiyo ku ololeynaya marka uu burco jooga waxa weeye Cabdiraxmaan Ciro Muudhisin madaxweyne Siinaaya 2010 ka fiirsada maanta codka aad bixinaysaan ha ku bixinina hebel baa shalay soo halgamay xisbiga kulmiye waxa uu hankii reer burco ku soo koobay 4 muraaqib oo xilliga doorashooyinku ay socdaan intay idinku maaweelinayaan afweyne ayaan la dagaalanay inta ay idinka sheekeynayaan waxyaabihii shalay iyo doraata dhacay war noloshiina ka fiirsada taariikhdu waa 23kii bishii 10aad 2024 waxaanu bartanka kaga jirnaa ololaha doorashooyinka 2024 doorashooyinka waqtigan la galaya waa doorashooyin isku sidka mar waxa loo tartamayaa ururadu inay u gudbaan xisbiyo marna waxa la kala dooranayaa madaxweyneyaal saddexa waxaanu ku jirnaa doorashadii ugu muhiimsanayd ee dal iyo dadba ahay tan ugu mudan in laga fiirsado sanadada soo socda ciidii talada dalka lagu aamini lahaa xisbiga kulmiye waa xisbi imka 14 sanadood dalka hayay wuxuu ku abtirsadaa halgankii SNM ee heeriyada la iskaga qaadayay nidaamkii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre wadamada haddaba sideen oo kale halganka soo maray waxa ay ka simeeyeen in ciidii halganka soo gashay ee gobonimada keentay ay maamuusaan ay taalooyin u sameeyaan hase yeeshee halganku marka uu dhamaado horumarka daldhiska horumarka dadka loo gudbo waxaan tusaale u soo qaadanayaa kullay askarta dalka haysataana way fahmaysaaye ingiriiska oo ahaa wadankii hore inoo gumaysan jiray dagaalkii labaad ee adduunka ninkii Hitler iyo naasiga ka xoreeyay wuxuu ahaa Churchill markii Hitler talada laga tuuray ingiriisku waxay ku tashadeen inay talada ka qaadaan Churchill doorashadii ugu horeysay ee dhacday 1945 waxay u codeeyeen isbedel waa isbedelka maanta aynu doonayno France waxa xoreeyay 1945 de Gaulle sidaynu taariikhda ku hayno hase yeeshee de Gaulle waxay arkeen inaanu horumarka iyo amniga iyo shaqo abuurka iyo dhismaha dalka qayb ka sii noqon karin wuxuu ahaa geesi dagaal oo xilliga loo baahnaa laakiin aan loo baahnayn marka la doonayo dhaqaalaha in la figis gareeyo marka la doonayo sixir bararka in la dagaalamo marka la doonayo ubadka iyo dadka ardayda jaamacadaha ka soo baxda in shaqo loo abuuro shacabka Faransiisku waxay ku khasbeen de Gaulle inuu iscasilo wadanka Hindiya waxay kala doorteen inay taariikhdii dul fadhiyaan oo sida qabuuraha caabudaan iyo inay horumar u leexdaan saddexdii doorasho ugu dambeysay qoyska reer Gandhi waa laga adkaaday doorashada Somaliland meelay joogtaba waxaan soo jeedinayaa ka fiirsada maanta codka aad bixinaysaan ha ku bixinina hebel baa shalay soo halgamay waayo Britain uma halgan kuma jirtaan waxa cadow kale oo ah faqri cadow kale oo ah amal la'aan cadow kale oo ah jidadkeennii oo burbursan iyo horumar la'aan ayayna haystaa waxa weeye kaynu baahanay inaynu wax ka bedelno ururka ka oo saacada ka bacdi u dareeri doono bandhigyadooda barnaamijkooda siyaasadeed ay doonayaan ummadda inay ku kasbadaan kaas oo uu qayb ka yahay oo ururka ka uu taagan yahay taageerayaashiisa iyo shacabka Soomaaliland ba inuu ku qanciyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inuu yahay murashaxa rasmiga ah ee hore inoo qaadi karaya halka aynu joogno hore inooga qaadi karaya ka wuxuu taagayay isbedel ka wuxuu taagayay horumar ka wuxuu taagan yahay in taariikhdii shalay la dhaafo ka wuxuu taagan yahay inayna noqon sidii qoomkii Nabi Nuux in badan markii uu Nabi Nuux la hadlayay uu ku lahaa war aynu jidka toosan ku dhacno qoomkii Nabi Nuux waxay ku jawaabeen aabayaasha Yaasir iyo Naasir nimankii wanaagsanaa ee nooca ayaanu dul fadhiinaa qabuurahooda reer Somaliland ma waxaynu u baahanahay inaynu dul fadhino hebel wuu soo halgamay mise waxaynu u baahanahay nolosha baratanka loogu jiro inaynu qayb ka noqono waxaan arkaa inta badan faqa ay kulmiye burco kula dhex waragaalaysanayaan iyagoo waliba ku khasba marka ay dadka la hadlayaan in telefoonada la damiyo kamaradaana aan la iskaga duubin waxa ugu weyn ee uu kulmiye ku ololeynaya marka uu burco jooga waxa weeye Cabdiraxmaan Ciro Muudhisin madaxweyne Siinaaya 2010 waa propaganda Siinaaya markii uu u socday kursiga madaxtinimada ee Somaliland laba aqal ayuu guusha ugu weyn ka gaadhay wuxuu aqalka hoose ee baarlamaanka oo uu afayeenka ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo aqalka guurtida isweydiiyay dadaalkii Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi galiyay guushii Axmed Siilaayo dib ugu noqdo wareysiyada ay bixiyeen Siciid Sulub cali warcade ama ambassador Cawil Cali Ducaale nin waliba waxay koranayaan Cabdiraxmaan waa ninkii Siilaayo noo jibiyay waa ninkii Siilaayo noo weexday waxay mararka qaar kood soo bandhigaan inay Ciro u bandhigeen wax kasta inay iyagu siinayaan hadduu madaxweyne doonayo xataa ay ka dhigayaan laakiin uu Siilaayo dagaalka uu kula safan yahay uu ka leexdo Ciro uu dhisay Siilaayo waxaan leeyahay asxaabta kulmiye ee fikradaha duugoobay ee gaboobay dadka ku kala qaybinaya ee ummadda u sheegaya
runtu waxa weeye cirra uu dhisay siilaayo marka aragtidaasi way dhamaatay wuxuu xisbiga kulmiye mar walba jecel inuu kala qaybiyo bulshada magaalada Burco oo halka isbedelka ugu weyn laga filayo inuu ka dhaco waxaan leeyahay codkiina mideeya codkeena marka aynu mudayno ayaynu waxa aynu doonayna gaadhaynaa sharaf baynu ku helaynaa dadyoga dunida ku nool ee codeeya waxa inta badan la majiirtaa kuwa codkooda midaysan yahay ee meel wada mariya xisbiga kulmiye waxa uu hankii reer Burco ku soo koobay 4 muraaqib oo xilliga doorashooyinku ay socdaan muraaqibiinta laga qayb geliyo waxa uu hankii iyo horumarkii Burco ku soo koobay baabuur yar yar oo inta doorashooyinku ay socdaan la kiraysto waxa uu hankii magaalada Burco ku soo ururiyay guri lagu ololeeyo oo la kireeyo war hankeenu ma intaasa war dawlad baa la dhisaya markastoo dawlad la dhisaya inaynu ilduufno maaha hadaynu nahay reer Burco hadaynu nahay gobolada bariga hadaynu nahay gobolka Togdheer wariyeynaan ilduufin war maanta awoodda waxa leh shacabka ilaahay sukadii dadka codeynaya ayaa leh reer Burco waxaan leeyahay waynu ku kala duwanahay ururada kaynu xisbi u gudbinayno laakiin kaas inaan kaga mashquulin dagaalka kiisa weyn doorashada ugu muhiimsan ee 13 November loo dareeraya waxa weeye labada musharax ee u taagan labada xisbi ee Soomaaliland ugu weyn waa musharax Musabbix Cabdi oo imika musharax iyo musharax Cabdiraxmaan Ciro oo musharax isbeddeldoonka ay ku midoobeen isbeddeldoonka waxa ku jira dadka kulmiye ka tirsan ama ku abtirsada kulmiye laakiin isbeddelka doonaya gacmo furan baa lagu soo dhaweynaya walaalayaal u codeeya isbeddel in badan waxa lagu celceliyaa in gobolka Togdheer dhaqaalihiisu hoos u dhacay waxaan idin xasuusinaya waxa gobolkeena ama gobolada bariga laga helay macdan taasoo ay ka mid tahay dhagaxa dahabka loo yaqaan si qarsoodiya ayaa baabuur shiraaqan loogaga ururiyaa degmooyinka bariga gobolka Togdheer ama gobolada bariga baha laga ururiyaba dekadaha laga dhoofiyaa airportka Hargeysa laga dhoofiyaa dakhliga nagama soo galo cashuur nagama soo galo wax horumarna dadka lagu ma celiyo hadii maanta aynu dahab leenahay oo haddana aynaan ka faa'iideysanayn meynaan la mid noqon doonin wadamada Afrikaanka ee shidaal kale ee diamond kale ee dahabka wadamadooda laga soo guro ee cid kale ay manaafacaadsato maanta waxaanu la circiireynaa sixir barar maanta waxaanu la circiireynaa nolol aad u qaaliya waxaanu la circiireynaa kiirada guriga oo aad u qaaliya oo cid walba dhibaysa inamada guryaha dhisay ee muruqmaalka ah maanta ma awoodaan inay dhul ay guri ka dhistaan ay iibsadaan intay idinku maaweelinayaan afweyne ayaanu la dagaalanay inta ay idinka sheekeynayaan waxyaabihii shalay iyo dorrata dhacay war noloshiina ka fiirsada war nolol jaban baynu u baahannahay war waxaynu u baahannahay codkeena inaynu ku ciil baxno waxaynu u baahannahay codkeena inaynu mar walba ugu codeyno cidda danteena aynu ka dhex aragno reer Burco waxaan leeyahay isbeddel codeeya